qurxamo libaaxii dadku gacashanaya garbodkay cayaaraan shabeelkii wax goyn kulan wanaagsan dhageystayaal waxaan ahay Axmed Maxamed ku soo dhawaada barnaamijka tusmada sharciga toddobaadkii barnaamijka tusmada sharciga wuxuu ku saabsan yahay xaq ay haweenku leeyihiin waxbarashada mawduucan wuxuu diiradda saarayaa xil intee leeg ay shariicada islaamku ka saartay inay haweenku waxbartaan haddii haweenka waxbarashada loo diido maxaa ka dhalanaya martida barnaamijkuna waa Faadumo Ayaan Axmed Cabdulaahi ku soo bir wada hadalka dhageystay kuna soo dir aragti iyo su'aal wixii kaaga baxa lambarada idaacadda ee kala ah eber 69624 ama eber 69624 tusmada sharciga waa barnaamij awoodsiin iyo horumarinba u ah bahda jecel dhiganaysana cilmiga sharciga iyo qaanuunka waxa nagala qayb galaya asxaabta kala ah Najmo Cabdiraxmaan Cusmaan Ismaaciil Cumar Xasan iyo Fardowsa Axmed Yuusuf mar kale ku soo dhawaada barnaamijka tusmada sharciga su'aalo ma ka qabtaa dhanka sharciga iyo cadaaladda dib ma kala kulantay helitaanka cadaalad adigoo sharciga maray ma jeclaan lahayd in laga caawiyo ama lagala taliyo haddii ay jawaabtu tahay haa fadlan nagala soo xiriir nambarkan gaaban 2233 oo bilaash ah kaasoo diyaar kuugu ah xarunta kaalmo sharciyeedka ee jaamacadda Muqdisho hagaag barnaamijkeena ayaan gudaha u galeynaa waxa aan falanqeynaynaa ciwaanka ah xaqa haweenku ay u leeyihiin waxbarashada waxa ciwaankan nala rogrogi doona oo macluumaad inaga siinaya Faadumo Ayaan Axmed Cabdulaahi oo stuudiyaha nagula sugan waxaan jeclahay markan inaan codbaahiya ku soo dhawo bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmaciin bahda radio himila ardada sharci qaanada assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh salaan kadib mandhawa ugu horeyn si aan u fahanno ama u gudagalno ciwaanka waxaad noo sheegtaa xaqa ay haweenku leeyihiin waxbarashada adigoo ka eegaya aragtida islaamka marka horanta waxaan ognahay ahmiyadda ay siisay shariicada islaamka ee waxbarashada ilaahay wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuuna wal ladhina la ya'lamuun miyay siman dadka wax bartay iyo kuwa aan wax baranin marka aragna nolosha ahaana macnaha waa waxa fahmi karna masino inta kadib haweenka islaamka ka hor waxay ahaayeen yani dad aan lahayn wax xuquuq ah haday ahaan lahayd dhan kasta oo xaq nolosha ah waxay ahaayeen dad oo macnaha adeegayaal ah waxay ahaayeen dad la adoonsado laakiin markii dambe waxa imaaday islaamka imaaday gabdhigu karaamay markii ugu horeysay gabdhaha waxay gaareen ilaa nolol ku duugaan Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu dhahay ida bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib ahadkood hadii gabar loogu bishaareeyo wuxuu ahay mid wajigiisu isbedelay muruga darteed ay markaas tawaara min alqawm dadku ka dhuumana ay yumsiku ala hun am yadusu fi turab ala saa ma yahkumun ma waxsi muruga ay iskaga haystaa oo noloshiisa dhan muruga iyo iktiaab ay ku jira bas nolosha ay ku duuga marka ila intaas kadib islaamka ila uu bedelay gabdhii wuxuu si qiimo si karaamo si xuquuq badan oo si xaq nolosha si xaq waxbarashadu si dhamaan ilay kala sinaadaan rag yani inuusan kala soocin labada jinsi markii ugu horeysay oo waxyi soo degay waxa ugu horeeyay nabi sallallahu alayhi wasallam loogu yeeray markii jibriil qabri ugu tagay godka waxay ahayd in yani uu amray alqiraa wal kitaab yani islaamku wuxuu amray in wax la aqriyo waxna la qoro ayadoo la kala soocin labada jinsi yani rag iyo dumar lama dhigin rag kaliya wax barashada yani ku dadaalaan Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu dhahay iqra bismi rabbika alladhi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram meeshaas waxa ka dareemi karnaa qiimaha ay leedahay waxbarashada iyadoo la kala soocin labada jinsi islaamku wuxuu siiyay haweenka wuxuu siiyay meesha ugu sareyso oo ah inaan yani oo kala soocin waxbarashada markii la dhaho nabiga sallallahu alayhi wasallam gabdha ayaa u imaadeen waxay ku dhaheen yaa rasuulullah qalabana alayka rijaal raggi ayaa naga ka guuleystay oo yani waqti aanu kula anahay markasta raggi ayaa kula joogo waxa noo sameeyay maalin naftaada nooga sameey waxna barto cilmiga fahansiiso nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ka aqbalay uu soo dhaweeyay wuxuuna u sameeyay maalin gaar ah oo la kulmo uu wacdiyo
oo diinta baro waxa yani wanaagana faro xumaantana kaga reeb taas waxay tusinaysaa qiimaha uu sameeyay diinta islaamka sababta nabiga ma dhihin adinka haween ayaa tihiin waxa liinku talagal gurigiin inaad joogtiin oo aydan wax baran ma dhihin laakiin wuxuu sameeyay maalin gaar ah uu wacdiyo yani uu waaniyo uu wacdiyo waxna uu baro qiimaha marka waxbarashada u leedahay gabdhaha macnaha islaamka mid ma ahan la soo koobi karo hadii maanta dhan aan sheegayno Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu dhahay fastajaaba lahum rabbuhum إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى يعني ماشي صح كعربا قف كسر إذا كميدا فس إله وكأقبل إنه سنديعين عمل قف كرس شقة ولا إماذا يعمل كيس يوحبر شيء إنه ليش يدم روحه هذا سيدك الله وحده يرفع الله الذين آمنوا منكم شردي كليك وحرم حواي ضدك إيمانك رمي إيمانك لجهله يعني مسلمين أو إلهي وحقرين كوقاضي والذين أوتوا العلم درجات يعني إلهي وحصر وقاضي كوي نبي رميو أذنك إذن كميدا أو الدين تقاتي هذا نوحو درجة قر إذن كجمري والذين أوتوا العلم درجات كو علمي جلسي وحبرتي هذا الدرجة أهان والله قر وقاضي ماشي أصلا حين تسيسا إن سن كلا سوعناه رجع الدم يعني حفصة أم المؤمنين نبي حاسكي سيد مركي وإنتي سن إسلام كوسابين كور حيد دور معناها كوفي عن القراءة والكتاب وأخرنت قرالك آذو كوفي عن أيهات مركي إسلامتي نبي صلى الله عليه وسلم وحوفري إن قبلها أيضا وحبرتق كتاب هذا قرالك يبرت إلى أولها وتجا حفصة قبلين وحكوا أمري إن حفصة وتجان كبرتان قرالك أخرنت تاسو حين سيدا منزلة يعني كور إسلام كان إن علمي أولها إن وحقرته حقرسه kadibna uu nabigu u faray in laga faa'iideysto aqoonteeda waxbarashadeeda aqoonta marka gabdhaha islaamku wuxuu kala saaray yani mid fardu cayn mid fardu kifaaya fardu cayn waxa la wax kasto oo qofka hadii uu sameyn waayo dambi soo galay qofku mid kasta marka fardu cayn waxa gabadha inay barato wax kasta oo cibaadaadkeeda akhlaaqiyadkeeda sulukiyaadkeeda diinteeda toosi iyo reerkeeda u dhaqan leed ilmaha u tarbiyan leed wax kasta oo waajib kaga ah inay barato ayaa fardu cayn la oo waajib ay ku tahay fardu kifaaya waxa la wax bulshada qayb kamid hadii ay sameeyso oo kuwa kala dambi ka dhacay farbar gabadha marka cilmigeedana qayb waa fardu cayn oo waajib ay ku tahay inay barato diinteeda iyo sulukiyaadkeeda iyo cibaadaadkeeda dhan qaybna waa fardu kifaaya oo ah wax bulshada u baahan tahay tusaale bulshada maanta waxay u baahan tahay gabdho dhaqaatiir in la helo gabdho oo midwifery ama umulisooyin in la helo marka waxa waajib ah gabadha inay barato cilmi kasta oo bulshada baahi u qabto maanta waxaa jiray gabdho badan oo islaamka yani sameeyay taariikh dhanka cilmiga ah iyo waxa kamid ah gabadha dhig jir Faaduma Tulfihri Faaduma waxay kamid ah dadka loogu tiiriyo cilmiga thaqaafada iyo adabka iyo xikmada sidoo kale culuumul fiqh islaami wal hadith ayadana aad u diyaarisay ayadoo yar ay waxay ka soo haajirtay magaalada dhaha Qayrawaan waxay timid Tunis markaas ay ku barbaartay ay ku baratay fiqh qayb kamid ah waxay ahayd gabadhii ugu horeysay ee ka dhistay masjid oo caalamka islaami la wada aqoonsaday hadda yartaan gabadhii ugu horeysay ka dhis waxa ka faa'iideysanaya oo iskaga imaanaya Afrika qaaradda Afrika oo dhan dhammaan muslimiinta markay imaadaan ee masjidkaas cilmiga ku barto kadib waxay u laabanayeen magaalooyinka ay deganaayeen si bulshada ama dadka deegaanka u baraan taasna waxa way gabar wax baratay oo sameysay meel laga tixraaca aqoonteeda faa'iidana u noqotay bulshada kala duwan waxa kamid ah Rafiida Islaamiya waxay ahayd gabadhii ugu horeysay ee furta ama dhistay iskuul lagu barto cilmi tamriid ama cilmiga nursingka ama kalkaalinimada taasna waxay tusinaysaa cilmiga iyo heerka ay ku gaartay gabadhaas in yani duulaanka taraacada ay daaweyso sidoo kale waxay baratay cilmiga cilmi ijtimaaci oo ah sida yani loo xaliyo mushkilaadka nafsiga ee kaga imaada ciidamada dagaalada dhaxdooda yani qofka dagaalku waxa laga yaabaa inuu ka qaado waxyaabo problemaad si loo daaweeyo sidoo kale ayadana way baratay waxa kale oo tusaale noogu filan oo Mucadiya Al-Ansari ay in cilmiga ay baratay ee ku anfacdo saxaabada oo ahaa inay dhakhtarad ahayd ee daaweynaysa dhammaan dhaawacyada saxaabada ka soo baxay sidoo kale waxay ahayd macallimad barta dadka cilmul janaa'iz oo fiqiga iyo dhammaan waxa uu yahay barto intaas yani waxay noo tahay tusaalooyin waaweyn ee hadda Khadiijo kale marka oo imaano Allah subhanahu wa ta'ala markuu rabo inuu soo saaro hogaamiye wanaagsan oo bulshada hogaamiyo aqoon u leh yani wuxuu gacanta u gelin jiray hooyooyin u gelin jiray waxa kamid Nabi Muuse Nabi Ciise Nabi Maxamed
quraanka marna ma sheegin meel nabi Muuse aabihiis uu yani ka soo galay noloshiisa iyo taariikhdiisa waxa noo sheegay laakiin dhibaatadii iyo wixii ay ka martay hooyadiis marka hooyada markii ay tahay hooyo wax baratay waxay ahaanaysaa hooyo bulshada saameyn ku leh nabi sallallahu alayhi wasallam markii qaar xira uu godka ugu yimaado Jibriil uu yani qalqalay oo Jibriil macnaha luxluxay laabtay asagoo murugaysan oo gurigiisa u laabtay wuxuu u tagay Khadiija waxay ahayd gabadhii ugu horeysay yani gabar ahaan iyadoo laga fiirin qofkii ugu horeeyay diinta islaamka qaatay ee nabiga ka qaatay sallallahu alayhi wasallam rag iyo dumar markay Khadiija u tagtay macnaha way dejisay waxay u sheegtay wixii asloogan Ilaahay kuma wajinaayo adiga waxa tahay ku fiican balanta qof run badan marka qaalinta ay ka qaadatay haweenka iyo aqoon-yahanada bulshada samcad ku leh waa arki karnaa maxay tahay ahamiyadda ay leedahay inay haweenku wax bartaan haweenka waxbarashada yani ahmiyadda uu leedahay kulli qof wax bartay ina waxa garan karnaa in yani ahmiyad gaar u leeyahay adduunka hadda joogna yani wuxuu isku bedelay casri iyo technology iyo aqoon wax lagu gaaray aqoontaas la gaaray maanta oo lagu kashifay waxa lagu ogaaday Allah subhanahu wa ta'ala aqoon oo sakhira waaye ahmiyadda ay leedahay marka gabadha inay gabar wax barato dadkeeni hore yani waxay ku doodayaan anaga waalidiinteena wax soo ma baranin xilligeeni waana soo saareen wayna tarbiyeen markasta waxa kala duwan waqtiga la jooga iyo xaaladda dunida sida casriga u tahay waxa adag jiilka maanta la korinaya iyo jiilka hore sidii loo kala saaro ahmiyadda ay leedahay gabdhaha marka inay wax bartaan qadiyaha kala saar number 1 ani waxa dhihi lahay horta soo saaridda jiil leh tayo aqooneed iyo mid nafsiga ka dhisan jiil tayo aqooneed marka dhisayno waqtigan maanta la joogo oo ilmihii yani ay wax badan oo dunida casriga la haystaan ee adagta inay tarbiyadii aqoonta iyo wax badan yani sideedii hore ahaato gabadha markay tahay gabar wax baratay waxa u fudud in ay la socoto dhaqdhaqaaqa ilmaha waxbarashadooda aqoontooda heerka marayaan diyaarinta imtixaanaadkooda mid nafsi iyo mid maadi yani inay ka dhisto marka qodobka ugu horeeya waxa waa ahmiyadda horta gabadhu leedahay waxa waa inay soo saarto jiil leh aqoon tayo leh nafsi ahaan u dhisan talabaada dhihi karana waxa waaye ahmiyadda u leedahay gabdhaha ee waxbarashada horumarinta baahiyaha aasaasiga yani gabadha waxay kaalin ka qaadanaysaa in yani ay ka shaqeyso ama ay qayb ka qaadato baahiyaha asaasiga maxay in bulshada u baahan tahay waxa ugu horeeya caafimaadka ugu horeeya oo maanta waxa arkaynaa shaqooyin badan ama caafimaad dhaqaatiir badan oo bulshada marka hore wax ka sameyn jiro oo maanta warkii la helay gabdho wax bartay ee meesha ka baxeen waxa kamid ah maanta waxa adag nin raga oo gynecology baranaya ama gabar oo macnaha sida dumarka looga umali baranaya baahidaas waxa meesha ka saaran waxa waaye gabdhihii oo fahmay cilmiga bartay gabdhihii oo kaalintii caafimaadka ama meesha loo baahnaa buuxiyay sidoo kale waxbarashada waxa arkaynaa gabdho wax bartay macallimiin ah hooyooyin ah murabbiyaal oo wax tarbiyeeya ama caruurta kaalin muhiim ah kaga jooga maanta oo la'aantooda ay adkaan lahayd inay noloshaan yani la sii jaan qaadaan marka asaas dhaheynana yani William Shakespeare wuxuu dhahay ummad markii la rabo in la baabi'iyo waxa laga baabi'iyaa hooyada iyo macalinka labadaas marka hada labadaas tiir la soo dhisin oo aqoon lagu dhisin way adagtaa in bulsho ee soo kacdo in bulsho baahiyaha asaasiga ay daboolaan saddexaad waxa gabdhaha ahmiyadda u leedahay gabdhaha inay wax bartaan waxa horta gabadha wax baratay waxa u fudud inay la imaato hal abuur ama xirfad skills ay ku shaqeysato hadii maanta ay weyso wax shaqaaleysiyo waxa u fudud inay la imaato hal abuur waxbarashadeeda yani ku abuuran karto ama fikrad ama ideeyooyin cusub ay la imaan karto sidoo kale waxyaabo ahmiyadda u leedahay bulshada waxa waaye sumcadda iyo qiimaha waalidiinta oo sare u kacda ama qoysaska tusaale aabaha ay u joogaan saddex gabdhood oo mid masterta mid bachelorta mid diinta baratay yani uu ka sumcad badan yahay aabaha bulshada markii lagu dhex jiro aabaha aan ilmihiis wax baran marka ahmiyadda leedahay waxa ugu weyn wax kamid ah macnaha sumcadda iyo qiimaha ay qoysaska leeyihiin oo sare u kaca oo yani qodobka shanaad isleeyahay waxa waa iyadana ciribtirka aqoon darada yani markasta oo gabar wax barato guriga ay kasoo baxaysa ama ay joogto ama ilmaha ay dhalayso ilmo aqoon-yahana ay noqonayaan oo wax bartay oo sababta hooyada waxay garanay qiimaha waxbarashadu u leedahay waxa ciribtirmaya ama yaraanaya jahliga marka inta ay soo bixi lahayn jiil aan wax baranin waxa ciribtirmaya jahligii iyo aqoon daradii inta kalixaadna waxa way qaybgalka yani siyaasadda gabdho badan waxa jiro oo wax bartay siyaasadana qayb ka ah wax badan ku soo kordhiyay sidoo kale helida dakhli
يعني ku filan gabadh nolosheeda gabadha markay ay wax barato waxa way qof isku filan ay shaqaysanaysa ee nolosheeda iyo nafteeda kaafinaysa dakhliga soo kordhinaysa haddii aysan haweenku helin fursado waxbarasho ama loo diidaba maxaa dhacaya ama ka dhalanaya dalkeena markii burburka dhacay waxyaabaha ugu waaweynaa ee gabdhaha yani ay ka muuqdeen waxa ugu horeeyay macna qabaa'il isku laayay ragga way adkeed inay banaan soo baxaan inay shaqo tagaan way adkeed waxay noqotay inay nolosheeda la badbaadiyo laakiin kaalinta ugu weyn waxa qaatay gabdhaha Soomaaliyeed taasna waxay tusaysaa yani gabdhaha xilligaas yani siday ugu soo dhabar adeegeen noloshooda wax kasta ay awooday inay ka soo shaqeyso ama ay wax barato marka bulshada ay ku adkaatay in gabadhii wax la bari waayo waxa imaanayso iyadan dhowr qodob hor dib u dhac imaanay dib u dhac bulsho yani qodobka deeta soo sheegno kale yani waxa kamid dib u dhac gabadh inaan helin hooyo wax baratay oo bulshada ka caawisa inay soo saarto jiil wax barasho leh marka waxa imaanaya in bulshadii ay dib u dhac noqoto oo dib dhacaasna uu keenay in aqoontii yani la qaadan waayo aqoontana markasta oo meesha ay ka baxdana macnaha waxa ilbaxnimada ayaa meesha ka baxa aqoonta ilbaxnimada way wada socdaan oo qof kasta oo aqoon leh macnaha waxa way qof horumarsan oo ilbax ah talabaad waxa ka dhalan kara xuquuqdeeda waxbarasho oo la duudsiyo gabadhaas waxay xaq u lahayd inay wax barato in bulshada ay la jaan qaado in dunidan ay maanta wax ku soo kordhisay maadi iyo diiniba yani labada qodob oo soo sheegnay in cilmigi nafteeda iyo diinteeda iyo nolosheeda anfici lahayn aysan baran cilmigi bulshada ahaan looga baahnaa inay u barataan aysan baran marka waxa qodob kale waxa loo geystay gabadhaas xuquuqdeedii oo ilaheed oo ah in wax barato ayaa tacadi loogu geystay oo aysan helin saddexaad waxa xumaanaya barbaarinta caruurta barbaarintooda yani waa ku celcelina way xumaanaysaa oo sidii la rabay ma noqonayso dadka ma lahan iskuma qalma alkafaa wax la dhaha ma lahan dadkan qofkan qofa wax bartay qofna wax ma baran taas darteed waxay keenaysaa burburka bulsho yani qoysaska oo bato sharaxaadaada inkastoo ku jirtay maxay bulshada uga dhigan tahay ama taraysaa in haweenku ay wax bartaan bulshada waxay uga dhigan tahay wax wanaagsan ay uga dhigan tahay oo bulsho gabar wax baratay kulli bulshada waxay ku soo kordhinayso waa wada ognahay ayadana waxa dhigi karnaa ilaa dhowr qodob oo kala saarno horta waxa dhistaanka nabadda oo dalka oo dhisma ama bulshada dhexdeeda oo ah qofkan in ilmihii ama bulshadii ama dadka ay tarbiyeysay in qof oo laga nabad galo oo yaqaan qiimaha uu leeyahay wadanimada qiimaha ay leedahay nabadda yaqaan oo lagu soo tarbiyeeyay horta nabadda ayaa dhismaysa talabaad wax soo saarka kobaca dhaqaalaha bulshada dhexdeeda ayaa kordho oo ah sababta gabadha waxay wax barato waxay noqonaysaa qof xirfad leh qof oo wax soo kordhiyay oo bulshada dhexdeeda u keenay yani wax ku soo kordhiyay ay noqonaysaa talabaad waxa xalinta khilaafaadka oo yaraanaysa dadkii hadii aad soo sheegay isku dhacyada iyo khilaafaadka badan iyo xataa gabar wax baratay gabar wax baran xaafada ay degan isku sulukiyaad iyo akhlaaqiyad iyo dhaqan iyo ma ahan oo garan karnaa yani sidii ugu idin badan tahay sidoo kale ka qaybgalka adeegyada bulshada inay iyadana ka qayb gasho oo ay waxbarashadii caafimaadkii qayb ka noqoto iyo inay u doodo dadka nugul inay ilaaliso xeerarka nidaamka bulshada dhexdeeda yani qof kasta kugu xeeran wuxuu leeyahay xuquuq iyo wax in loo ilaaliyo mudan marka gabadhaas waxay bulshada uga dhigan tahay inay tahay qof aan sameynaynin wax tacadi ama xadgudub ah oo ilaalisa bulshada unu dooda dadka nugul waxa arkaynaa gabdho sharciga bartay oo maxkamadaha ka shaqeeya ama joogo oo dadka nugul ee tacadiyada loo geystay ku difaacaya ama xuquuqda ugu soo celinaya si oo freely leeda ama oo qarash aan lahayn ama jaaj aan lahayn marka taas waxay nasiisaa gabdhaha ahmiyadda iyo bulshada waxay uga dhigan tahay yani waxay uga dhigan tahay ah kaalin weyn waa sidee xaaladda waxbarasho ee haweenka Soomaaliyeed markaas barbar dhigto hadda iyo waagii hore gabdhaha Soomaaliyeed waxbarashadooda waagii hore horta Soomaaliyeed waxay aaminsaneed jika jaamacad gabar jika u dambayso gabadha si kasta wax la baro meel yani waxay iska noqonaysaa qof oo gurjoogta oo aan waxba ku soo kordhin taasna horta fikrad waxa jirta gabdhaha oo waalidiinta Soomaaliyeed ama bulshada Soomaaliyeed aaminsanayeen oo ahayd gabadha hadii wax barato oo waqti la geliyo qarash la geliyo birinina guursana inay caruur dhalaysa
gabadha waxay soo kordhin lahayd oo faa'iido iyo anfac ah waxa qaadanaya ama la wareegaya ilmaheeda iyo ninka ay guursatay oo waalidiinteeda wax soo baray aysan waxba ka helin taasna waxaa haddana tustay oo meesha ka saartay gabdho badan oo aqoon-yahano ah oo wax bartay oo reerkoodii iyo reerkeedii iyo waalidiinteedii iyo qaraabadeedii dhammaan isku hayso oo nolosha ku ka afisay marka aragtida laga qaatay markii hore ahayd jika gabar jaamacada u dambaysa waxaa meesha ka saartay dadaalka iyo waxyaabo ay soo kordhinayaan gabdhaha wax bartay markii la arkay waalidiin badan oo maanta waxaa jirta kaga dadaal badan wiilasha gabdhaha yani markii wax barasata waxaa la ogaaday gabadha markii wax barato inay kaga baarisan tahay waalidkeeda ka og tahay uga dhowdahay wiilka markasta marka taas waxay keentay marka in lagu degdego in gabdhihii waxbarashadii loogu dadaalo looguna ordo marka oo isbedel badan ka jiro waayadii hore iyo hadeertaan oo sababta ah hadda hadaysan gabdhaha ka badneen wiilasha wax baranayo yani goobaha waxbarashada marka aragno inta badan gabdhaha ku badan caqabadaha inkastoo isbedel inuu jiro caqabadaha jira ee yareynaya in gabdhaha ay waxbarashada ka mir dhaliyaan maxaa kamid ah hadii jiraan caqabadaha waxaa kamid ah caqabado dhaqaale iyadana waxaa jira gabdho badan oo u baahan in wax bartaan bulshada wax kusoo kordhiyaan laakiin dhaqaalihii iyo qaabkii wax u rabeen ay u saamixi waayeen bulshooyinka kale inta hadda waa gobolada fog kale inta iyo meelaha baadiyaha kale waxa laga yaabaa dadkaas inaysan wacyigooda aysan arkin waxbarashada iyo qiimaha ay leedahay iyadana caqabad kale waa oo gabdhaha waxbarashada ku hor istaagi karo si loo helo haween badan oo wax bartay maxaad kula talin lahayd waalidiinta iyo bulshada guud ahaanba runtii bulshadeena Soomaaliyeed mar kasta way u baahan tahay in la taliyo ama talooyin laga siiyo gabdhaha waxbarashadooda ani waxa kula talin lahaa horta number 1 in la dhiirigeliyo waxbarashada gabdhaha dhiirigelinta waxbarashada gabdhaha marka dhaheeno tusaale marka qolobka ugu horeeyo oo yani tal ahaan u soo jeedin waxa in la dhiirigeliyo waxbarashada gabdhaha Soomaaliyeed talabaad waxa in la shaqaaleysiyo gabdhaha waxbartay hadii la shaqaaleysiyo waxay dhiirigelin u tahay gabdhaha aan wax baranin sababta gabadha markay aragto gabar wax baratay shaqaysanaysa nolosheeda ku filan reerkeeda iyo waalidiinteeda ku filan waxa hammi ka galaa inay wax bartaan waxay isleeyihiin hadda gabadhaas camal wax baran lahayd waxa qabsan lahayd marka shaqaaleysiinta gabdhaha waxay dhiirigelin u tahay gabdhaha kale aan wax baran iyo sidoo kale in macnaha la joojiyo ama meesha laga saaro tacdiyada gabdhaha loo geysto waxbarashada dhexdeeda oo ay gabadhii la niyad jibiyo in gabadhii maskaxda laga dilo oo la yiraahdo adiga waxa ma soo kordhinaysid aqoontaada wax faa'iido ma lahan nin ayaa ku raacaysa ila abuse garay gabadha aysan jirinna wax ay kaga cabsanayaan goobaha waxbarashada ay istagayaan hadii ay jirto goobta wax tacadi kaga cabsanayaan macnaha waxay istaajinaysaa in waxbarashada sii wadaan iyo in waalidiinta ayaga lagu wacyigeliyo oo loo sheego ahmiyadda ay leedahay waxbarashada gabdhaha ay u leedahay يعني noloshooda intay nool maadi diinaba gabadha hadii barato in adduunyadeedana ay isku filan tahay aakhiradeedana ay u shaqaysanayso markan dhanka ay qaybgalayaasha ayaan eegaynaa waxaan soo dhaweynayaa Najmo Cabdiraxmaan Cusmaan bismillaah awala assalaamu calaykum waxaan salaamayaa macalimadda iyo dhammaan dhageystayaasha iyo bahweynta idaacadda Himilo su'aasha aan weydiinayo waxay tahay macalimadda kaalin intee leeg ay ka qaadan karaan horumarinada kala duwan ee bulshada gabdhaha wax bartay su'aasha labaadna waxay tahay sidee looga hortagi karaa fikradaha qaldan ee bulshada ka aaminsan yihiin gabadha hadday wax barato inayna waxba soo kordhinaynin oo gabdhii wax baran lahaa xataa looga niyad jabinayo lagu leeyahay qofka waxbarashada birka maal waxba macnaheeda ma soo kordhinayso sidaas ma santahay Najmo kaalinta ay gabdhaha ka qaadan karaan gabdhaha wax bartay ee bulshada ka qaadan karaan waxay ka qaadan karaan su'aashaada koowaad waxay ka qaadan karaan kaalin weyn ay ka qaadan karaan gabadha wax barato Soomaali kalimaan gabadha markay wax barato in ay wax badan yani soo kordhinayso bulshadeeda waxay ka shaqeynaysaa ama wax ka bedelaysaa horumarinta bulshada ama adeegyada bulshada inay wax ka qabato caafimaadka kale inay wax ka qabato waxbarashada inay wax ka qabato ee noqoto yani qof masdar ah oo aqoonteeda darteed loogu soo laabtay waxay wax ugu gudanaysaa ama waxaas uu qabanaysan waxa waaye aqoontii iyo wixii bulshada ku soo aaday waxyaabaha kale u tari karta ama bulshada wax u qaban karta waxa waaye yani jiilka ee u soo saartay bulshadana inay u ahaadaan yani bulsho oo يعني كديسان dhinac kasta aqoontii iyo baxnimadii iyo dhamaan fikradaha waxa lagu baabi'in karaa gabdhaha lagu niyad jibinayo oo leeyahay jiko gabar jaamacad macnaha waxbarasho gabar waxa u dambeeyay jiko
waxaa lagu baabi'in karaa isleeyahay horta in kulay la dhiirigeliyo waxbarashada gabdhaha oo la tuso qiimaha iyo ahmiyadda ay gabdhaha u leeyihiin waxbarashada iyo dhinac kasta inay yihiin dadka kaliya qofka kaliya ee ku taagan heerkan oo ah haddii ayada al-umma madrasa idaa acdata acdan shacban dayala yani ayada haddii la diyaariyo waxay soo saaraysaa bulshada marka in laga dhaadhiciyo bulshadeena qiimaha ay waxbarashada u leedahay gabdhaha iyo ahmiyadda ay u leeyihiin iyo in waalidiinta naftirkooda ayagana dadka gabdhaha gacanta ku hay in lagu wacyigeliyo in gabadha haddii wax la baro ciribtirka ahliga oo ciribtirmaayo in subcad iyo aqoon iyo nolol iyo kulli ay yani ku gaari karaan bulshada dhex marka waxa ugu weyn waxa waa isleeyahay in la dhiirigeliyo waalidiintana lagu wacyigeliyo ahmiyadda waxbarashada u leedahay markan waxaan soo dhaweynayaa ka qaybgalaha labaad Ismaaciil Xasan ayaa soo dhaweynaya. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. aad iyo aad baad u mahadsantahay ustaadada iyo qaabka runtii wanaagsan ay barnaamijka noogu soo jeedo sidoo kale bahda kala duwan ee Himilo iyo sida ay ugu soo bandhigayaan bulshada wax aad kulay u anfacaya insha Allah aadaan ugu mahadcelinaynaa insha Allah aniga laba su'aalood oo kooban ayaan weydiin lahaa su-aasha koowaad waxay tahay dhinacyo badan ayaa laga soo hadlay dhanka shaqada markii la joogo gabdhaha iyo ragga shaqada ha noqoto mid public ama mid private ha noqoto si gaar loo leeyahay iyo mid guud oo caam ah dadka ka dhaxayso maxay ku kala duwan yihiin xagga dhanka qabashada shaqada iyo waxay ka aaminsan tahay gabdhaha iyo ragga intaba markaan saas leenahay waxa ku dhex jiro waxbarashada gabadh wax baratay iyo wiil wax barto ma shaqeyn karo su'aasha waa midaas su'aasha labaad oo insha Allah aan rabo iyadan inaan weydiiyo waxay tahay si guud ah sidee kor loogu qaadi karaa waxbarashada gabdhaha maadaama aan aragno falsafado yani inta badan iska dareemaysa iska raqiisa inay jiraan bulshadeena dhexdeeda waqti badan yani soo socday oo gabdhihii in mataqaan waxbarashadii laga hor istaago ama la yiraahdo waalidkii taa waxa dhici karto in maxaa la dhihi jiray dhaqaalaheedu iska kooban yahay laba gabdhood iyo wiil oo guriga joogo in laga yaabo wiil iyo gabar ay joogaan gabadha in la reebo wiilka waxbarashada loo diro marka arinta iyada ah yani sidee mataqaana kor u qaadid wacyi loogu sameyn karaa aadan u mahadsantahay ustaad mahadsantahay Ismaaciil su'aashaada shaqada macnaha farqiga u dhaxeeya ama sida u kala duwan yihiin gabdhaha iyo wiilasha shaqada markii la joogo gaar ahaan ku wax bartay farqiga horta wuxuu ka bilaabanayaa in shaqooyinkii markii goobaha shaqooyinka kale markii la arkay markasta ay wiilasha badan yihiin meesha ugu weyn oo caqabadaha ka imaatana yani waxa u baahan in la tixraaco ma gabdhihi ayaa shaqooyinka soo ablagareen mase meesha ayaa waxa ka jira in markasta wiilasha la xulanayo sababta waxa arkaysaa meelaha qaar inkastoo hadda aad u yaraatay in meel gabdhaha ay ka aqoon badan yihiin wiilasha laga qaato gabdhaha shaqada markii la dhahaana gudashadeeda gabdhaha kulli aan waxa isla fikrad ahaan anoo dumar ahaan ugu xixanin gabdhaha waxa qof waxay ka daacadsan yihiin inta badan ragga shaqo meelaha goobaha shaqada jooga waxa arkaysaa hadda degmooyinka kale gabadha degmada ay madaxda ka tahay iyo wiilka meesha madax ka yahay gudoomiyaha degmada ka yahay gabadha markasto way ka qurux badan tahay way ka bilicsan tahay way ka shaqo toosisan badan tahay taasna waxa keenaysa shaqada sidii ugu daacadsan yihiin ama u kala fircoon yihiin talabaad su'aasha labaad ee sar u qaadida gabdhaha waxbarashada iyadoo markasta meesha laga saarayo caqabadii jirtay dhaqaalaha haday ahaan lahayd ama fikrad la aaminsan yahay kulli su'aashan waxay soo dhaxgalay su'aashii hore ee Najmo markasta bulshada waxay u baahan tahay ama waalidiinta in la fahansiiyo gabdhaha Soomaaliyeed ama gabadha wax baratay ahmiyadda u leedahay ama waxa ay ku soo kordhin karto waxbarashada iyo in iyagu ku filnaan karto iyo in laga saaro meesha oo ah wixii hore u jiri jiray gabadha hadii wiilka waxbarashada culays dhaqaale uu jiro oo markasta wiilka garab la siinayo in la dareemo in gabadhan ay leedahay xuquuqda ay leedahay xuquuqda wiilka uu leeyahay kale inay leedahay oo inay wax barato inay wax qabsato inay bulshada wax ku soo kordhiso marka in iyadan midii hore waa in la dhiirigeliyo wacyigelin loo sameeyo ustaad aad ay mahadsan tahay su'aasha ugu dambaysa saddexaad insha Allah ustaad ma isleedahay guurka iyo waxbarashadu inay yani dhinac positive hadii laga dhinac negative hadii laga eego inay saameyn isku yeelan karaan labadaas dhinac oo ka fiirina aadan u mahadsantahay
ma yani fikrad ahaanteeda wax oo saameyn weyn iskuma lahan sababtoo ah qof kasta iyo go-aankiisa waa casiimadiisa haddii aan go-aansaday inaan waxbarashadeeda heer ka gaaro aan ku guuleysto hamiga aan lahaay aan xaqiijiyo wax badan ma jirto caqabad guur oo iga reebi karto inta badan gabdhaha waxay ku andacoodaan inaysan garab haysanin culays wuu jiraa aada u daran wuu jiraa aada weyn gabadha inay wax dhasho inay reerkii dhaqdo inay waxbarashadii aad u adkaana imtixaanka inay gasho laakiin waxaa la rabaa wax kasta waxa waaye waa go-aan iyo hamiga qofka meeshu tiigsanayo wax aanan dhibaato loo marin yani lama dheefsado marka aan fikrad ahaanteyda ismalihi culays ay isku yihiin oo gabadhii ayadoo reerkeeda leh gabdho badan oo waxa arkaynaa reer leh caruur dhalaay waxbarashadana wato shaqeynaya haddana intaas dadaalkooda ay ku keensadeen maaha wax ay abuuris ay dheer yihiin marka isma saameynayaan fikrad ahaanteeda ka qaybgalaha ugu dambeeya Firdawsi Axmed Yuusuf ayaan jeclaynaa soo dhawaad أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرت شرفت برنامج كسوق بقشة يا دمان بو سؤال شاويدينا وحياتها هاي مركي ليس دمرك أهمية أولادها waxaa dhahday inay jiil cusub la soo dhiso yani sidee kula tahay jiil cusub loo soo dhisi karaa adigoo baahiyaha jiro wadanka iyo xalwada u fiirinayo ama sita Firdawsi su'aal muhiim ah waaye waxaa dhahnay soo saaridda jiil tayo aqooneed leh marka dhaheen waxa waaye dunida maanta waxay maraysaa meel casri ah waxay maraysaa meel dhibaatadii iyo fasahaadkii uu batay أنا فكرة أنتي إذا يعني حاسلها كلية وحمارين كرا صار كرا جيل أقول قبل وحبرتي بس صوت وكل دوان تهاي عصري هرئي هديرتان مركا جيل تيلا مركا عليه نحاول والماء لصو برباري تربية أقونتي لغو تربية diintii laga dhisay aqoontii maadiga laga dhisay guriga ku haysta macallin labaad ka xoog iyo saameyn badan macallinka banaanka wax ku baraay marka jiilkaas haduusan helin hooyadaas wax baratay dhaqankiisa iyo aqoontiisa bedeli karto way adagtahay in la soo saaro jiil tayo leh tarbiyeysan aqoon leh cilmina leh yani ma aan kaliya in ardayga intuu iskuulka wax soo bartay iska imaado guriga iska saaxdo cuntada la siiyo jirki laga dhiso aanan maskaxdii iyo aqoontii laga dhisayn marka intaas oo culays iyo caqabad jiro waxa yani ka bixi karta isleenahay hooyo wax baratay kaliya culays badan oo xataa waxa jiri kara family ku imaan kara oo culays dhaqaale oo ilmiya oo suuragelinaynin inay wax bartaan laakiin markay haystaan hooyo wax baratay waxa basiga ku filan oo soo dhisaysa oo ilmaha yar wax soo baray hooyada waay marka culays kasta oo jiro waxa loo gudbi karaa in la helo hooyo wax baratay guud ahaan barnaamijka tusmada sharciga baahintan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa waxaan ka hadalnay ciwaanka xaqa haweenku ay u leeyihiin waxbarashada waxaan nala falanqaysay oo weydiimaha ka warcelinaystay Faadumo Ayaan Axmed Cabdullaahi sidoo kale waxa barnaamijka ka qayb ahaa Najmo Cabdiraxmaan Cusmaan Ismaaciil Cumar Xasan iyo Firdawsi Axmed Yuusuf intaan mar kale ku kulmi doono sida ay nabadgelyo magurxamo libaaxii dadku gacashanaya garboodkay cayaaraan shabeelkii wax